السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كأني نودن بي وحن قادني how to draw the structure of alkenes أما how to write سيدنا الله قرأ أما سيدنا الله سويرا قاب اسمك إلين alkeneska وهيدروكربون نذله نبل باونكا أما دبر كلمان ما أنت عشر كأنه كوساب سياي سيد الله بالانس كريه أما سيد الله ميزامه combustion reaction فالجلك بارنينك أما جوبشة فالجلك جوبشة alkeneska سيدنا الله ميزامه how to balance combustion reaction. Okay, balancing combustion reaction for alkanes. Formulahan ayaa loo isticmaalaa alkaneska marka ay yihiin burning ama combustion si loo balance gareeyo. Formulahan loo adeegsanayna aan xalino ama aan ka shaqeyno. Example kan ugu horeeya example number 1 balance miisaan the following reaction falgalka soo socda methane plus oxygen waxa noo soo baxay carbon dioxide and water falgalka noocan oo kala taa oo soo saaraya productigiisa ama maxsuulkiisa uu noqonayo carbon dioxide iyo biyo waxa loo yaqaanaa complete combustion waa gubasho dhameystiran waxaa jira incomplete combustion iyo complete combustionka ama gubashada dhameystiran waxaa loo isticmaalaa sufficient oxygen ku filan marka productigeeda wuxuu noqdaa always carbon dioxide and water sida meeshan kaaga muuqata isla egtaan markii methane aan ku gubo oxygen waxa soo baxaya carbon dioxide iyo water falgalka soo saaraya carbon dioxide iyo water kana waxa loo yaqaanaa complete combustion waa gubasho dhameystiran ayaa loo yaqaanaa marka falgalka waa complete combustion waa falgal gubasho oo dhameystiran maxaa loo isticmaalaa falgalka gubashada ah ee dhameystiran conditionkeedu wuxuu noqonayaa in la helo sufficient oxygen okay hadda waxaan bilaabaynaa inaan balance gareyno waxaan fahmnay complete combustion maxaa la dhahaa productigiisu muxuu noqonaa waxaasoo dhan waa sheegnay complete combustion waa falgalka dhameystiran ee gubashada ah ee maxsuulkiisa ama productigiisu uu yahay always carbon dioxide iyo biyo conditionka looga baahan yahayna waxa waaye in la helo sufficient oxygen ku filan hadda aan balance gareyno isla egtaan ugu horeyn waxaan soo saaraynaa imise carbon ayuu ka kooban yahay isla egta la rabo in la gubo ama compoundka la rabo in la gubo wuxuu ka kooban yahay 1 carbon atom marka n oo noogu taagneed had iyo jeer number of carbon atoms hadda waxay la mid tahay n = 1 ku bedel meel walba oo isla egtaan ka mida ku bedel maxaan helaynaa halkan markaan ku bedelo 1 waxaan helaynaa qaabkan C1H2N 2 times 1 plus 2 intaan saasay noqonaysaa plus inta waxaa taala 3 times n 3 times 1 plus 1 oo loo qaybiyey 2 intaasna waxaa iskale oxygenka inta waa ku dhufasho arrow ama falaar inta waxaa ku taala n booskeeda 1 ku bedel inta waxaa ku taala n plus 1 n booskeeda 1 ku bedel so waxay noqonaya 1 plus 1 water okay kaarboonka ama shayga hadduu hoos 1 ku wato wax qiimo ah male marka lama xisaabo ama lama qoro meesha waxay noqonaya marka C carbon kaliya inta 2 times 1 waa 2 2 plus 2 waa 4
H4 plus halkan 3 times 1 waa 3 3 plus 1 na waa 4 4 divide by 2 na waa 2 meeshaas waxaa nooga soo baxaysa labo oxygen arrow ama falaar halka hadduu yahay coefficient asagana wax qiimaa ma leh mar walba ama haddii la qoro ama haddaan la qorinba halkaas mar walba uu ka horeeyaa carbon dioxide marka asagana ka tag plus meeshaan 1 plus 1 waa 2 oo water ah isleegtaaniyo dhammaystiran oo balance ah waa taas seen ku ogaanaynaa isleegtaan inay balance tahay iyo in kale waxaan samaynaynaa checking hubin ayaan samaynaynaa marka meeshaan aan ku samayno hubin aan hubino checking okay dhankan waa left side aan soo gaabino dhankanna waa right side of the equation waxaa nala ka rabaa all the atoms oo ku jira left side inay la ekaadaan atomiska ku jira right side markaas waxaan dhihi karnaa equationkeenna ama isleegteenna way balance garaysan tahay aan samayna marka muxuu ka kooban yahay reactionkan only 3 elements carbon hydrogen iyo oxygen aan qorna marka left side dhanka bidix iyo right side dhanka midig carbon hydrogen iyo oxygen intana waa carbon hydrogen iyo oxygen okay how many atoms aan haysanaa oxygenka ee carbonka dhankan 1 hal hoos waxaa ka hooseeya halkaasna laba qoraan ku dhah marka waa hal carbon dhankan carbon kaleeta kuma jira inta hadduu ku jiri lahaa inta waa isku dari lahayn balaasaa u dhaxeeya carbonka intaan ka helno iyo kuwa inta laakiin hadda kuma jiro marka waa hal left side oo dhan hal carbonaa ku jira right side aa imaano asagana hal keliyaa ku jira wax kale ma laha so number of carbons are balanced way balance garaysan yihiin hydrogenka aan tagno 4 hydrogen haysanaa 4 atom intuu hydrogenaa kala ma laha left side ama dhanka bidixda waxaan haysanaa 4 atoms of hydrogen right side ka aan fiirino 2 times 2 waa 4 iyadana hydrogen are balanced iyaguna way miisaaman yihiin ugu dambayn oxygen 2 times 2 waa 4 left side right side u imaaw inta waa 2 plus inta oxygen kala ku jira labadan coefficientiga ah oo horgalaha ah waxaa wadaaga hydrogenka iyo oxygenka so kana way ku dhacdaa daayo 2 times 2 aan dhaanay haddana oxygenka ay ku dhacaysaa oxygenka maxaa ka hooseeya marka hal aan la qorin marka 2 times 1 waa 2 intana 2 aan haystay balaasna wuu dhaxeeyaa isugee 2 plus 2 4 inta waxay noqotay 4 oxygenkana waa balance marka isleegteena guud ahaan waxaan dhihi karnaa isleegtaan oo dhan are balanced way miisaaman tahay isleegteeni way miisaaman tahay okay waxaan ku daraynaa example labaad exampleka labaad hadda waxaan miisaanay methane waxaan miisaamaynaa butane oo 4 carbon atoma aan aragno qaabkaan u miisaamayno
okay waxaana la yiri balance the following reaction waa butane marka lagu daro oxygen ama marka lagu gubo oxygen falgalkuna uu yahay complete combustion oo la haysto sufficient oxygen productigan always wuxuu noo noqonaa dayaan sheegnay carbon dioxide plus water okay and mizano in this case carbonadaan haysana muxuu noqonaa 4 carbon sideen ku garanay halkan waxa ka hooseeya 4 marka n is equal 4 n 4 carbon atom waa aan ku bedelna inta maxaan helaynaa halkan C4 H 2 times 4 plus 2 plus 3 times n 3 times 4 ay noqonaya markaan plus 1 oo loo qaybiya 2 oxygen arrow halkan waxaa ka horeeya n n10 waxaa la mid tahay 4 carbon dioxide plus n plus 1 laakiin n waxay la mid tahay 4 okay waa ku wada bedelanay inta maxaa soo baxaya C4 H 2 times 4 waa 8 plus 2 na waa 10 formulahana noo soo baxay plus 3 times 4 waa 2 alif 2 alif plus 1 na waa 13 divide by 2 oxygen inta 4 carbon dioxide plus inta isuge 5 water isleegteeni sidaas ayay ku dhammaystiran tahay halkan waxaa ku jira marka fractionkaas ka baabi sababtoo ah balansiga always waxaa loo rabaa inuu noqdo whole number tiro dhan maxaa la samaynaa marka haddii fraction aad aragto waxaa samaysaa fractionka hooseeyihiisa meel walba ku dhufo si loo baabi'iyo fractionka waxaan samaynaynaa marka fractionka hooseeyihiisu waa 2 halkan 2 ku dhufo inta 2 ku garaac inta 2 ku dhufo intana 2 ku dhufo maxaan helaynaa inta waxaan helaynaa 2 C4 H10 plus halkan 2 ku dhufo oxygen inta 2 ku dhufo 2 times 4 carbon dioxide inta 2 ku dhufo 2 times 5 water fiiri meeshaan waxa dhacaya marka 2dan iyo 2dan isku cancel ujeedada aan labada ugu dhifana waxay ahayd inaan baabi'ino fractionka ama jajabka meesha soo galay si loo helo tiro dhan whole number sida loo helo sababtoo markaa wax balance garaynaysid waxaa lagaaga baahan yahay all the numbers ama all the coefficients inay noqdaan whole number tiro dhan inay noqdaan dhammaan horgalayaasha okay answerka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa 2CH4 2C4H10 plus inta waxaa kugu soo haray 13 oxygen falar halkan 2 times 4 waa 8 carbon dioxide plus 2 times 5 waa 10 water isleegta ugu dambaysa oo fractionkii laga bixiyey waa taas bal aan hubino isla egtaas meesha ku qoran inay tahay balanced iyo in kale okay checkina samaynaynaa oo hubinaynaa left side iyo right side okay waxay ka kooban tahay carbon hydrogen oxygen
okay dhankan maxaan haystaa carbon 2 times 4 waa 8 carbon kala ma laha left side 8 right side fiiri 8 ayaa ka horeeya inta laakiin inta hala kuugu qarsanaa 8 times 1 waa 8 carbon kala ma laha right side ka asagana waa 8 so number of carbon atoms are balanced both sides labada dhinacba hydrogen kan fiirino 2 times 10 labadan coefficientiga ama horgalaha mar walba elementiska meeshan ku yaala way wadaagaan mid walbaba tirada meeshan taalo way ku dhacaysaa haday intaan ku dhufanay hadana hydrogenka 2 times 10 waa 20 hydrogen kala ma laha meeshan aan fiirino right side 10 times 2 waa 20 waa balance labada dhinac waa 20 ugu dambeyn oxygenka 13 times 2 waa 26 right side 8 times 2 waa 16 plus inta oxygen kala ku jira 10 times oxygen kan hala ka hooseeyo oo la qorin 10 times 1 waa 10 isugay waa 26 intana waa 26 therefore isleegteeni carbon 8 dhankan 8 hydrogen 20 inta 20 oxygen 26 inta 26 isleegteeni way miisaaman tahay waa balanced ashirkeeni maanta oo ku saabsanaa how to balance combustion reaction for alkanes intaas ayuu noogu eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu